أن وحنا هاي أور ليرادة معاوسي وحنا سوء أبابلنا إسكانيو وحنا ربنا إن الله دجالنا الشباب وحنا ربنا إن ودن كينا كعرب ترنو halganka lagu xoreeyay Shabeellaha Dhexe kuma uusan imaan in madaxa loo raariciyo qawaariijta waxaasay ahayd go'aan ay qaateen shacbiga Shabeellaha Dhexe oo garab ka helaya dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo dowladda federaalka kama hadlayno dagaal toos ah oo dhex maray ciidanka xoogga dalka iyo qawaariijta waxaan si xusaynaa doorkii muhiimka ah ee ay lahaayeen shacbiga aadan yabaal ee ka biyo diiday gumaysiga qawaariijta way adkayd in qof ka hor yimaado amarada qawaariijta waliba meelaha ay gacanta ku hayeen shahiid hibaad cali dasar isaga oo aan haysan hub iyo rag badan oo ka barbar dagaalama ayuu si cad u diiday inuu u hoggaansamo qawaariijta sida caadada ahayd qawaariijtu waxay si qasab ah dagaalada u geliyaan caruurta waxaana ay soo saareen amar ay waalidiintu uu ka mid yahay hibaad ay keenaan wiilashooda si gaara waxay u bartilmaameedsadeen wiil yar oo uu dhalay hibaad shahiid hibaad cali dasar waxa uu diiday in wiilkiisa oo 8 sano jira uu qayb ka noqdo qawaariijta al-shabaab waxaana halkaas ka bilowday in bartilmaameed laga dhigto hibaad cali dasar sidaas ayuu hibaad iyo saaxiibo kale oo la dareemayay dhibaatada ay u qaateen qoriga waxaan ugu kalifay inaan la dagaalano ururka al-shabaab oo ah dad rayida ku nool degmo aadan yabaal tuulo kamid ah oo la yiraahdo guulane waxaan ugu kalifay 8 sano ayaa wadanku naga kireysnay intaas maalan bixi jirnay waxa ay noola timid kiradii way ka badatay in la bixiyo maal waxay nagu geysay in la yiraahdo dadkiina keena oo caruurtiina gabdhihiina wiilashiina keena in la yiraahdo taasaan ugu kaliftay shahiid hibaad cali dasar waxa uu qaatay ama waynu guuleysan oo libintu waan gaari ama geeri sharaf laynu dhiman gocosho waa ceebe halgankii hibaad waxa uu ka bilowday deegaanka guulane ee hoos yimaada aadan yabaal waxaana uu dhalay in guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe laga ciribtiro qawaariijta al-shabaab hibaad maanta ma joogo dunida waxaase halgankiisa harsanaya caruurtiisa oo uu ka badbaadiyay in ay baadiyoobaan hibaad ya nuur cali dheere caroora cunugow dhalo calanta toosnay caleed ninkii u yaray cirifkana ay ku dileen ciroolihii dhihi maagay caleedintuu farqi maayo caraafkana ay u dileen awda cidda ay ka dhasheen shahiid hibaad cali dasar isaga oo 56 sano jira ayuu dunida kaga tagay sharaf iyo gobonnimo maanta deegaankii hibaad waa xor waxaana hoog iyo ba